Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaan ardayda ku xiran channelkeena Kasbarto Official Soomaali. Insha Allah caawa halkan waxaan ku duubayaa kilibkeenii saddexaad oo ku saabsan istiraatiijiyadeenii wadajir strategy. Kilibkani wuxuu ka saabsanaan doonaa fundamental analysis ama taxliilinta ingiriiska iyo soo ogaanshaha waxa lacagta ku sarrifaysid waxa laga soo yiri. For example marka laba lacagood isku bedelaysid oo euro iyo USD oo kala euro iyo USD oo kala waxa laga yiri euro lacagteeda waxa laga yiri USD lacagteeda. Insha Allah caawa casharkeena ku saabsanaan doonaa fundamental analysis iyo inaad ogaatid labada lacagood ama labada bayr aad isku sarrifaysid mid kastaba wadankiisa xaaladiisa guud iyo waxa ka jira iyo dhaqaalihiisa. Insha Allah waxaan u guda geli doonaa casharkeena. Afwan hadda idin xasuusiyana arda badan waxaa jirtay ila soo xidhiidhay laakiin waqtigiisa wuxuu waayay inaan iyaga aan la xidhiidho oo la hadlo. Saa idiin sheegayna waxaan idiin sameynayaa group telegram ah kii hore ku noqday file. Insha Allah waxaan idiin sameyn doonaa group telegram ah oo anigu si directly inaga soo hadlo idinku aad ka soo hadashaan insha Allah. intaa ka sokow waxaa jirtay arda badan oo soo weydiisay suuq la yiraahdo suuqa forex waliba inta la yiraahdo FTMO challenge. FTMO challenge waa wax jira oo real ah qofkii u baahan isagu gaar buu ii weydiinayaa kilib gaar ah haddaad u baahan tihiin aaraahdiina iyo fikirkiina commenting ku dhigi kartaan. Kilib gaar haddaad u baahan tihiin waan ka sameyn karaa sida loo sameeyo sida loo baas gareeyo intaba waan ka caawin karaa insha Allah haddii Ilaahay idmo. FTMO challenge waxay tahay haddaad u baahan tihiin waa ogaan kartaan oo waan idiin soo duubi karaa kilib waan ka soo sameyn karaa. laakiin caawa mawduucina in u gudbino mawduucina wuxuu ahaa baa idinku yiri in sheegay fundamental analysis wax kooban oo time kooban oo ku soo dhameyn doona haddii Ilaahay idmo. haddii aan soo furno Chrome-keena waxaan imaanaynaa website-kan koowaad oo ah very important oo ka ogaanaysid newsyada aan markaa loo ballansanayn oo la ogeyn waxa xilliga ay soo baxayaan oo waxaa la yiraahdaa headline news baa la yiraahdaa oo newsyada suuqa iska soo gala kadib suuqa jahaysi ka wareejiya suuqa dhanka ka ogaanta oo suuq newska hayay newska ogaa ayaa waxa soo bixi kara news kale kadib dhinaca ka ogaan karaa suuqa aad afar hale ahaada wax yar baan iska xiriyay waxa weeye waxaad ogaan kartaa labada lacagood teebaa news xoog la ka soo baxay iyo teebaa news halis ka soo baxay. waxaad soo gelaysaa halka ay ku qoran tahay more afwan aan idiin sheego waliba news waxaa la yiraahdaa forex.com waxaad soo gelaysaa kadib markuu saako ugu soo galo ku dhufaysaa halka ay ku qoran tahay more kadib waxaa ku qoran halka ay ku dhufantahay halka ay ku qoran tahay season waves inta saa ugu dhufatid waxaa ku soo furmaya page-kan oo imka joogno saan u dhigan. markii aad saa u soo gashid dibdoo waxaad daalacanaysaa akhrisanaysaa newsyada ay kala yihiin maaragtay si ay u kala baxeen sida loo kala qoray sida u kala halis badan yihiin newska lacagtada ku saabsanna isla markaas isaga toos u abaaraysa oo aad doonaysaa inaad newska soo ogaatid kadib toos ayaa isaga u abaaraysaa oo isaga ayaa toos u ogaan kartaa waxa laga yiri waxa loola jeeday waxa markaa laga damacsanaa. website-kan kale isagana waxaa la yiraahdaa trade economics oo isagana trade economics markaas ugu dhufatid waxa ku dhufaysaa halka ay ku qoran tahay calendar newsyada loo ballansan yahay waxaad ku ogaan kartaa sida afar marka lacagta la yiraahdo halka u sugan doolarka gofornalka wada hadlayay sugan doolarka maaragtay maalinkaas lacagta Japan iyada newskaas ka soo baxay maalinkaas lacagaha waliba website-kan wuxuu aad iyo aad u very important ugu fiican yahay lacagta Europe oo dhan isku qaadi maayo Europe wadanka ay ka tahay oo kuu sheegaya wadanka newska soo baxayo website waxaa jira forex oo kala
lacagta waddankaas kasoo baxay kuma sheegayaan yurubta yurub oo dhan saacinaya lacagta yurub ka qoya laakiin website-kan aad iyo aad very important ugu fiican yahay website kale wuxuu kuu sheegayaa xilliga lacagtan soo baxayso iyo waddanka kasoo baxayso iyo si gaar u abaaray website-kan isaguna waa kan idin sheegayay waxaa la yidhaha forex live isagu markii aad meesha iisa kusoo dhafataan oo siisan website kenya page kan isagu sida kale usoo dhafa lacagta American dollar iyo Canadian dollarka jimcihii waxaa kasoo baxay yiri intan oo news oo halis ah lacagta Canadian dollarka employmentigeeda rateska waxay ahayd 259k waxaa ku kordhay 75k expected gareeyay saa darteed lacagta Canadian dollarka way fiicnaatay lacagta USD card waxay bedelanaysaa saadeeda waxaana u bedelanaysaa dhanka sell ahaan because maalinkaas cagsigeeda lacagta USD way xumaatay oo waad aragtaan lacagta USD waxay ahayd lacagta USD 2.8 2.7 bay noqotay 1% bay khasaaraysay oo waxaad ogeydeen lacagta goldie jimcihii ay kor u kacday oo almost ay ka kacday 1700 oo ay tagtay 1700 haddii aan xagga u dhimaano lacagaha forex weeganka oo lacagaha yurub laga qoray nasdaq waad ogeydeen in 2% ku kordhay kor ay u kacday lacagta UK oo maaragtay January monthlygeeda GDP-ga dhaqaalaha guud ee dalka marka hore isagoo iska sii xuma uu sii laciifayba marka hore waxaa -2.9 waa noqday -4.9 sii xumaaday dhaqaalaha waddanku dhulka sii galay Germany oo CPI-geeda oo maaragtay consumer price index-keeda uu ahaa maaragtay 3.9 oo laga filayay uu 1.3 buu ahaa waxaa laga filayay maaragtay kor uu kaco dhaqaalaha waddanku bartiisa iska taagan yahay wax dhaqaala kooca kuma kordhin oo maaragtay Germany kala ayana wax xun baa laga soo tiriyay maaragtay in coronavirus uu kala dhacayo ayaa laga soo tiriyay halkan waxaad u imaanaysaa suuqyada Aasiya lacagaha Aasiya waxaa laga yiri iyaga laftirkooda China oo kala wadamadaas Singapore oo kale waxaa laga yiri waad ku arkaysaa laakiin inta badan lacagahan Aasiya kasoo baxa suuqa iyaga ma khusayaan waa lacagaha inta badan ay ku tiragelin ma ahan marka website-kan intaad ugu qaabilsan yahay marka aad xagga timaadid more season waa soo kordhatid waxaad arkaysaa newsada ugu horeeya kuu soo dhigay waa America iyo Canada iyo Europe newsada ayuu kuu soo dhigayaa newsada ayaana ka akhrisanaysaa halkan maxaad ku ogaanaysaa isagana website-kan ku fiican yahay website walba waxbuu ku fiican yahay website-kan ku fiican yahay isbarbar dhiga labada wadan isku baalgelinaysid ee isku bedelaysid lacagahooda oo kaga fiican yahay dhanka isbarbar dhiga marka aan doonayo inaan laba wadan lacagahooda isbarbar dhigo waxaan ku ogaan karaa in labada wadan ay qolada kala fiican yihiin insha allah mawduuc kale aad uga diyaarin lahaa website-kan waa website aad u baaxad weyn waxaan doonaynaa inaan mawduuc gaar ah isaga diyaarino mawduuc gaar ah isaga aynu ka sameyno hadda laakiin waxaan ogaanaynaa website-ka sida ugu fudud ee lagu ogaado news headline newskiisa night headline newskiisa iyo qaybta maaragtay calendarkiisa oo maaragtay news loo balansan yahay asbuucan waxaa soo baxay news aad iyo aad u tiro badan lacagta USD iyada wax kasoo baxay news maaragtay qaab daran oo iyada u habboonayn sida maaragtay saddexda news oo hadda isku xiga oo kale laba ka mid ah USD wax kasoo baxay war bad very bad waa xun kaas waa ku faa'iiday waa la odhan karaa marka lacagtii USD isbuucan dhulka ayay gashay oo hadda ogeydin jimcihii aad iyo aad u liidatay USD waa sida tan haddii aad doonayso headline news oo xagan ku jirin waxaad imaanaysaa halka ay news ku qoran tahay markii aad timaadid halkan baa ka daalacanaysaa marka newska iyo waxyaalaha la daabacay oo la qoray maaragtay lacagaha kale ku saabsan marka adiga maaragtay translate garaysanaya oo macnaysanaya waxaa loola jeeda newsyadaas laakiin anigu waxaan ku tusinayaa keliyata habka newsyada loo baaro loo baxdiyo newska headline newska ah wuxuu aad iyo aad uga qayb qaadanayaa trade ballaynkaaga marka aad wax ku tiragelinaysid waxaad ogaanaysaa lacagtan aad tiragelinaysid news halisa kasoo baxay news loo balansan yahay baa jira waxyaalo badan waxaa jira maaragtay
marka trade taa lagama baahan yahay. marka iminka markii aad niyuuska soo gashay waxaa kusoo baxaya niyuusyada laga qoray daqiiqadaha kooban saacadaha kooban ku jirta suuqa lacagaha aad ku jirtid baa marka lama siisaa. iminka lacagta USD oo kala haddii aan raadino waatan United States stock marketkeeda inuu dhulka galay baa lagu sheegaya maartay stock marketka USD inuu dhulka galay saa darteed haddii aad gold ku jirtay khayr bay ku tahay haddii USD wax fiican laga sheego oo gold ku jirtayna halaag bay ku tahay. lacagta Kenya dollar inuu waatan USD kaal ku leeyahay disata 2 years low 3 sano oo dhulka joogtay hadda kor u soo kacay USD kaal maartay isbuucii dhaw USD kaal kor buu kacay laakiin jimcihii oo USD ay ka soo baxday niyuusyo xun dhulka ayay gashay USD kaal maartay wuxuu ku leeyahay jihada ismidna ku jirtay bay ku socotay. haddii aynu hoos socono lacagta United Kingdom waatan iyadu maartay 2 bilood buu kor u socotay USD buu ku leeyahay lacagta United Kingdom GBP lacagta Great Britain pound oo maartay kor u kacday oo ay 2 biloodba ay iyadu kor u socotay cadeynaya. marka waa sida marka niyuuska qaabka loo baaro fadlan haddii ay caawa intaas kusoo koobiyo casharkeena والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت عشر في حاجة يمكن دونه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أدت سنقطع سبسكرايب لايك أشير وحي ترى يتسارع هوستك سوق أرضي دون CFT مجالة لا حاوية أم إما في نشر عنه كنت عرفت ذلك بيه تران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.